assalaamu calaykum maalin wanaagsan. waxaa noo socdaa cashirkii digital ads platformka qaybtiisa labaad ee ku saabsan qaybaha 8 qayb ee loo qaybiyo internet platform advertising-ka oo aad u baahan tahay inaad ogaato aad wax badan ku ogaato. qaybtiisa koowaad ayaan waxaan ku soo qaadanay in xayisiinta qaabka ay u soo muuqanayso iyo midda xayisiinta soo muuqanayso halka ay ka soo muuqato. yacni waxaan ka hadlayaa website-yada ka soo muuqataa waxay ka soo muuqataa blogiska. marka website web pageska iyo blogiska labay kala yihiin. cashir kale aan ku sharxi doonaa waxa la yiraahdo blog waxa la yiraahdo iyo waxa la yiraahdo website-na waxa la yiraahdo. sidoo kale waxaan ku soo sheegay oo kale in landing pages ay leedahay telefoonada ay ka soo muuqato kale applicationada telefoonada lagu sameeyo Android-ka iyo iOS-ka. sidoo kale banners inay leedahay inay website-yada ay ka soo muuqato website-yada u gaarka ah Google advertising-ka. waana sidoo kale waxaan soo sheegay in 70% ay tahay mid muxuu ahaa website-yada ay isticmaalaan badana display advertising-ka waxa la yiraahdo. hadda waxaan galayaa qaybta labaad ee ah qaybaha ugu waaweyn ee digital ads platform internetka ee la isticmaalo. qaybtaas oo ah SEO oo macnaheedu ay tahay Search Engine Marketing and Optimization. SEM and SEO waxa la kala yiraahdo ayaan ku baran doonaa halkan. marka SEM-ka iyo SEO-ga waa laba qayb ee kamid ah advertising-ka kuwaas oo lagu talagalay in ay promotion ku sameeyaan content-iga. content waxa la yiraahdaa ayadana waan sharxi doonaa muxuu ahaa cashir kale ayaan ku qaadan doonaa cashirada website-yada iyo muxuu ahaa blog sharxayo ayaan ku soo qaadan doonaa content management iyo content ads-ka intaba aan soo qaadan doonaa insha Allah. waxaa lagu talagalay laakiin content-iga iyo muxuu ahaa in promotion ku sameeyo content-iga sidoo kalena uu increase uu ku sameeyo in uu kordhiyo feasibility-ga through searches. feasibility-ga in uu yacni website-kaaga uu noqdo popular name Google-ka search engine-ka. marka oo muxuu ahaa letter ama 2 letters isku xiga ama 3 letters isku xiga oo website-kaaga uu ka bilowdo oo la qoro in uu toos uu yacni muxuu ahaa popularity name ahaan uu soo qabto Google-ka ayaa waxa la yiraahdaa search engine-ka in ay badato feasibility-ga muxuu ahaa searches-kaaga. marka SEM-ka iyo SEO-ga waa laba qayb ee kamid ah advertising-ka waxaana lagu talagalay in ay promotion ay ku sameeyaan sidaan hore u soo sheegay content-igaaga. marka SEM-ka muxuu yahay? SEM-ka waxa waaye waa actual ads waaye waa paid ads. yacni waa xayisiino maxaa la dhahaa lacag maalgelin lagu soo sameeyay. marka adiga waa xayisiinaysaa waxaadna ka helaysaa lacag. waxaa idin dhexeeya marka qofkii investment-ka soo sameeyay iyo adiga iyo muxuu ahaa adiga u dhaxeeyo qofka investment-ka soo sameeyay iyo qofka user-ka ah ee click ee sameynaya click muxuu ahaa earning click money sameynaya adaa u dhaxeeya. marka adiga waxaa tahay qofkii marketing-ka sameynayay qof investment-ka qofka soo sameeyay adiga waxaa tahay qofkii marketing-ka sameynayay xayisiintiisa soo qaadaysaa waxaad u keenaysaa webka. waxaa imaanaya qof oo ka faa'iideysanaya xayisiintaas in uu yacni muxuu ahaa lacag uu ka helo. marka xayisiintaas keliga ayuu isticmaalayaa ama wuxuu isticmaalayaa text image numbers oo isticmaalayaa hadba sida ay tahay xayisiinta ay u soo muuqato. marka ujeedaduna waxay tahay in faa'iido la kala hanto in maxaa la dhahaa famous internet marketing ay noqoto well known. yacni waxaan waxa la rabaa marka inaad si fiican aad u taqaano mar intaadan galin ka hor inaad yacni muxuu ahaa investment-iga cidda soo sameynaysa muxuu ahaa halka laga sameeyay waddanka iyo inuu waddankaaga uu u yahay available uu isticmaali karo appka ama web appka wuxuu doonaba ha ahaado ama Android-ka wuxuu doonaba ha ahaado in uu yacni muxuu ahaa waddankaaga uu available uu yahay laga isticmaali karo. ujeedaduna waxay tahay in faa'iido laga helo. kaas waxaa la yiraahdaa SEM-ka. SEM-ka waa soo sharaxay hadda SEO-ga aan galaya. marka SEO-ga waxa waaye in asagana laga hela high rank in search engine results. high rank in search engine results yacni in popularity name uu ka mid noqdo popularity nameska uu ka mid noqdo website-kaaga
markii muxuu ahaa Google-ka laga raadinayo in uu noqdo kuwa ugu horeeya ee soo muuqan kara popularity name-ka inuu noqdo sidoo kale advertisers ajiro oo isticmaalaya SEO-ga badanaana waxaa lagu isticmaalaa tactics qofkana waa in uu aqoon sare u leeyahay traffic security-ga wax la yiraahdo hadduu yahay qof advertiser ah waa inuu traffic security uu aqoon u leeyahay because waxa waaye traffic security-ga xayisiinta soo dhigayso waxay ka ilaalinaysaa in xayisiintaasi ay muxuu ahaa caqabad ku dhacdo sida muxuu ahaa sida internetka weerarada internetka ka dhaca oo kale in ay maxaa la adiga ay ku soo wajahaan cidda xayisiinta ah ka soo sameysay suspicious ay dareento in suspicious-kaasna uu sababo in website-kaaga oo dhan la xadido ama website-kaaga oo dhan la xadidi maayo kaliya waxaa laga jarayaa xayisiinta weligaan xayisiin ma arkaysid domainkaas website-ka kugu samaysan hadduu yahay .com ama .net hadduu yahay well known waa la yaqaanaa marka website-kaasi yani wax traffic security ma lahayn waana laga shakiyey waxaa ku badnaa muxuu ahaa weerarada internetka ku badnaa sidoo kale lagu leeyahay marka anaga xayisiin available ma siin karno marka xayisiinta waa waxa kaliya lacagta tirada badan ee caalamka laga sameeyo way ka lacag badan tahay marka laga hadlo lacagaha sarifka lacagaha qaraad sarifka lacagaha qaraad ayadana waan soo qaadan doonaa cashir kale aan ku sharxi doonaa adigana aad ka faa'iideysanayso in aad ka faa'iido oo aad ka samaysato magaca website-kaaga inuu noqdo popularity name kuwa ugu horeeya ee soo muuqda marka search engine-ka lagu raadiyo waxaa kamid ah sida linkinka kamid ah linkinada kamid ah waxaa kamid ah targeting keywords-ka oo soo sheegay in xarfaha ugu horeeya ee website-kaaga marka la qoro uu toos u soo qaban karo muxuu ahaa Google-ka uu toos u soo qaban karo sidoo kale waxaa kamid ah meta descriptions waxaa la yiraahdaa waa waxa aana muuqan ee u dhaxeeya title-ka way u dhaxeeya head-ka labada head halka ay isaga xirmaan muxuu ahayd head close iyo head open-ka tag open head close-ka iyo tag open head tag close head-ka halka isaga ay muxuu ahaa inta u dhaxayso ayaa waxaa la yiraahdaa meta information waa meesha HTML information-ka waa meesha lagu qoriyay xayisiinta si aynan xayisiinta aysan u saameynin content yani muxuu ahaa baadhiga website-ka yani content-ga si aysan u saameynin content-ga waxyaabo badan saaran waxa saarnaan karo news saarnaan karo waxa saarnaan karo muxuu ahaa sidoo kale waxa saarnaan karo muxuu ahaa muuqaala saarnaan karo sawiro information company saarnaan karo waxyaabo badan saarnaan karo marka taas ayaa laga difaacayay waxa la sameeyay labada head halka ay headka halka labada head waxa u dhaxeeyo in yani xayisiinta la soo geliyo code waaye code yar in xayisiinta ay leedahay la soo geliyo marka xayisiinta option ay leedahay option-ka waxa waaye in muxuu ahaa meesha ay rabto position-ka ay rabto in ay dhigi karto xayisiinta haday doonto ay dhigi karto under the muxuu ahaa post inay dhigi karto between the paragraphs inay soo dhex dhigi karto in ay soo dhex dhigi karto top paragraphs-ka iyo side paragraphs-ka iyo head paragraphs-ka intaba inay soo dhex dhigi karto iyagoo kula wadaagaya banner ads-ka iyagoo kula wadaagaya marka SEM-ka waa paid strategy wuxuu leeyahay waa strategy paid strategy paid waxa la yiraahdaa hanaan oo wadiiqo wax lagu bixiyay lacag lagu bixiyay ayuu leeyahay laakiin SEO-ga waa organic waxa la yiraahdaa waa caadi waa wax caadi ah SEO-ga waa platform waaye ama plugin waaye waa iibsanaysaa waxa available ah in yani SEO-ga adiga muxuu ahaa aad ka sii samaysan karto muxuu ahaa SEO tactics inaad ka sii samaysan karto target link muxuu ahaa targeting keywords-ka linkings inaad ka samaysan karto in order magacaaga uu soo qabto Google-ka uu noqdo popularity keywords inuu noqdo